الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta dunida ku joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadani wararka. dekada magaalada berbara oo loo aqoonsaday in ay tahay dekada ganacsiga ugu adeega wanaagsan ee isku xidha Afrikada bari iyo dunida inteeda kale. tan iyo intuu madaxweyne Muuse Biixi xilka madaxtooyada Soomaaliland uu qabtay ayaa waxa uu heshiis la shaxeexday shirkadda DBWOL ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. heshiiskana oo dhignaa muddo 30 sanadood in lagu wareejiyo shirkadda DBWOL dekada magaalada berbara iyadoo ku maalgelinaysa muddada lacag dhan 442 milyan oo dollarka Mareykanka. haddaba dekada magaalada berbara ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dekadaha ugu wanaagsan bariga Afrika iyo dunida inteeda kale iyadoo kalmaha ugu horeeya ka soo gashay dunida. kaalinta ay ka soo fadhiisatay dunida ayaa waxa ay sanadii ugu dambeeyay noqotay in ay kaalinta 106 ka soo fadhiisato halka Afrika ama bariga Afrikana ay ka soo fadhiisatay kaalinta labaad. dekada magaalada berbara ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid horumar ballaaran ku tallaabsanaysa kaasoo maraakiib waaweyn oo caalami ah ay ku soo xidhanayaan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta Muqdisho ku daahfuray shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee sanadkii labaad oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay qofkii ummadda Soomaaliyeed qaybinaya ama raba in uu qaybiyo kuma qaybin karo qabiil. marka horeba ummadda Soomaaliyeed kuma midaysnayn qabiil. hadalkan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyay munaasabad lagu daahfurayay shirweynaha culimada Soomaaliyeed. muddooyinkii ugu dambeeyay waxa xiriirka u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Muuse Biixi Abdi ayaa waxa uu ahaa mid aad u taagtaagan kaas oo qalalaasa siyaasadeed u hareeyay isagoo lagu sababeynaya heshiiskiisa afkarada ee dhexmaray Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya. heshiiskaas oo u dhignaa in dowladda Itoobiya ay kaga codsanaysay ama kaga dalbanaysay Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay siiso saldhig military oo dhinaca badda ah halka bedelkeeda ay Itoobiya siinayso Soomaaliland aqoonsi caalami ah. sheeko la yaab leh oo ka dhacday magaalada bosaso. wiil ayaa sadohdii ku dishay magaalada bosaso. booliska gobolka bari ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen haweeneydii dilka u geysatay wiilkan Soomaaliyeed kaas oo gabadheeda oo u dhaxay ama uu qabay. tani ma aha mid ku cusub geeyiga Soomaalida dhawaanaya ahayd markii wiil Soomaaliyeed uu ku dilay magaalada Cerigabo sadohdii iyadoo sheeko kale jirtay oo ka dhacday gobolka Jubaland iyadoo ay ahayd wiil in uu ku dilay hooyadii ama uu ku tooriyay kaas oo lagu xukumay dil toogasho laguna fuliyay. qodobka arrimaha dibadda in maanta daawadayaal soo qaadan doono waxaa ka mid ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa markii saddexaad oo xiriir ah ku guuleyshay doorashada madaxtinimada ee dalkaas. haddaba madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee shalay dalkaasi ka dhacday sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka ee Venezuela. natiijadan ayaa lagu dhawaaqay oo ka dhigaysa in uu Maduro markii saddexaad uu xukumi doono madaxweynaadkiisii saddexaad oo xiriir ah dalkaasi. haddaba guddiga doorashadu waxa ay sheegeen inuu helay 150% kadib markii la tiriyay 80% codkii sanaadiiqdii ay codeeyeen reer Venezuela. intaan barnaamijkeena xiga daawadayaal ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. daawad haddii ay markii kugu horeysay soo booqatay waxaanu ku leenahay channelka subscribe saar sidaas iyo nabad